habeen wanaagsan dhegaystayaal mar kale meel kastood naga maqlaysaan khabiir madax bannaan oo soo baaray xaaladda xuquuqda aadamaha ee Soomaaliya ayaa shalay soo saaray warbixin ku saabsan xaaladda xuquuqda aadamaha ee Soomaaliya ee sanadkii la soo dhaafay. Warbixintan ayuu ku eegayay horumarada laga sameeyay dhinacyada xuquuqda aadamaha iyo gabood falladii dhacay. Warbixinta khabiirka waxay noo soo koobaya Jamaal Axmed Cusmaan. warbixinta uu soo saaray khabiirka madax bannaan ee Bahama Tam Nyandungu ee arrimaha xuquuqda aadanaha ee waddanka Soomaaliya ayaa waxa ay shaaca ka qaadaysaa xaaladda xuquuqda aadanaha ee dalka Soomaaliya sanadkii laga soo gudbay iyadoo sidoo kale dabagal ku sameynaysa dhibaatooyinkii iyo horumaradii laga gaaray hirgelinta qorshahani muddo 25 sano ah kadib. Khabiirka ayaa waxa uu shaaca ka qaaday in Soomaaliya ay samaysay waxoogaa horumar la taaban karayo oo ku aadan dhinacyada xuquuqda aadanaha iyadoo kaalmo ka helaysa beesha caalamka, balse weli waxaa jirta in meelo ka mid ah waddanka Soomaaliya ay dhibaatooyin gaboodfalla ay ka dhacaan. Khabiirkan ayaa waxa uu booqday xarumo ka mid ah maamul goboleedyada waddanka Soomaaliya iyadoo laakiin dhammaan maamul goboleedyada aanu isku soo marin ha yeeshee wuxuu booqday Jubbaland, Koonfur Galbeed Soomaaliya iyo Puntland oo uu la kulmay bishii December sanadka 2014 iyo bishii May 2018. Waxaa sidoo kale bishii May 2018 uu la kulmay wasiirada xuquuqda aadanaha ee maamulada Hirshabelle iyo Galmudug. Intii Muqdisho uu joogay waxa uu la kulmay afhayeenka baarlamaanka dalka Soomaaliya iyo guddiga xuquuqda aadanaha ee baarlamaanka Soomaaliya, xubno kale oo ka socday AMISOM iyo qaramada midoobay. Waxaana booqashadiisaasi ay imaanaysaa horumaro la sameeyay kadib markii Soomaaliya 12 Oktoobar 2018 loo doortay inay ka mid noqoto golaha guud ee xuquuqda aadanaha ee qaramada midoobay. Waxaa sidoo kale khabiirku uu booqday deegaanada Somaliland iyo Puntland. Dhibaatooyinka gaboodfallada dalka Soomaaliya ka dhacay inay dad sii xirxiraan iyadoo meelaha qaar aysan ka dhicin xukunno cadaalad ku salaysan isla mar ahaantaasina ay dhacaan dhibaatooyin ka dhana bini'aadanimada. Waxaa warbixinta sida lagu xusay la sheegay in Puntland lagu eedeeyo in ay xirxirto dhalinyaro yaryar kuwaas oo doonaya inay u sii tahriibaan qaybo ka mid ah dalalka gacanka isla mar ahaantaasina marin ka dhigta deegaanada Puntland, balse waxaa lagu eedeeyay inay shabaab ka tirsan yihiin sidaasna lagu soo xirxiro. Waxaa warbixintu ay leedahay in dhalinyaradaasi la jirdilo, qaarkood la dilo ama kuwo kalena aan la garanaynin ilaa hadda meel lagu hayo. Sharciyada la dagaalanka argagixisada lambar 2/2019 ee Puntland ayaa sidoo kale ah mid walaac laga muujinayo. Sida warbixinta lagu sheegay, kiisaska ka dhanka argagixisada ayaa weli waxa ay yihiin kuwo lagu maxkamadeeyo maxkamado military isla mar ahaantaasina aan loo gudbinin xarumaha maxkamadaha shibilka ee laga dhisay Muqdisho. Waxaa sidoo kale warbixintu ay sheegaysaa in weerarada ay ciidamada Mareykanka ka geystaan gudaha dalka Soomaaliya ay dhibaatooyin dadka rayidka ka soo gaarto. waxaana warbixintaasi lagu sheegay in weeraro ay ciidanka Mareykanka ka fuliyeen October 16, 2017 deegaanka Farax Wacays iyo 12 November 2017 deegaanka Dar es Salaam iyo 6 December 2017 deegaanka Ilimay iyo 9 December 2018 deegaanka Beledul Rahma ay dhamaantooda lagu eedeeyay in lagu dilay 14 ruux oo rayida iyadoo 8 kalena lagu dhaawacay. khabiirka madaxa bannaan ayaa sidoo kale booqday Hargeysa, Somaliland intii u dhaxaysay 17 ilaa 19 July sanadkan 2019 waxaana uu la kulmay afhayeenka baarlamaanka Somaliland, xiriiryaha Somaliland iyo wasiirka cadaaladda Somaliland sidoo kale guddiga xuquuqda aadanaha ee Somaliland. Waxa warbixinta lagu sheegay in Somaliland ay dhaqan gelisay sharciyo dhowr iyo siyaasado kuwaas oo kor u qaadaya difaaca xuquuqda aadanaha oo ay ku jirto sharci difaacaya xuquuqda dadka soo barakacay iyo dadka aan lixaadkooda dhamayn. Laakiin waxa warbixinta lagu xusay in sidoo kale gaboodfallo ka dhana xuquuqda bini'aadanimada ay ka dhacaan deegaanada Somaliland. Waxa lagu wargeliyay khabiirka in ilaa 70 gaboodfallo oo ka dhana shakhsiyaadka u shaqeeya warbaahinta laga diiwaangeliyay Somaliland sanad 28 suxufi ayaa la xiray. Sidoo kale 3 xarumo warbaahineed ayaa shaqada laga joojiyay 7 bilood ee ugu horeysay sanadkan 2019 iyadoo hal kiis oo kamid ah kiisaskaas oo idil maxkamadda la aaday. sanadkii 2015 ayaa amar uu soo saaray gudoomiyaha maxkamadda sare oo mamnuucayay in la xiro suxufi iyadoo aan amar maxkamadeed la wadanin ayaa sidoo kale dhaqan gelin. sida warbixinta lagu sheegay, dawladda ayaa waxa ay sheegtay in dadka loo xiro si qofka looga difaaco si aanay dadweynuhu dhibaato u gaarsiinin marka warbixino hoos u dhigaya sharci ahaanshaha Somaliland la daabaco. Waxaa warbixinta sidoo kale lagu sheegay in xubin ka tirsan baarlamaanka Somaliland loo xiray isla arrimahaasi darteed iyadoo ay jirto xasaanadii uu baarlamaanku lahaa. iyadoo gaboodfalladaasi oo idil ay jiraan ayaa waxaa dhinaca kale guddiga madax bannaan uu sheegay in wax horumar la taaban karayo laga sameeyay xaaladda xuquuqda aadanaha ee dalka Soomaaliya iyadoo iskaashi iyo caawimaad laga helayo hay'adaha caalamiga ee taageera Soomaaliya. aad ayuu mahadsan yahay Jamaal Axmed Cusmaan ayuu ahaa oo inoo soo koobayay khabiir madax bannaan oo soo baaray xaaladda xuquuqda aadanaha ee Soomaaliya. halkaad kala socoteena waa laanta afka Soomaaliga ee VOA.